mid waxa weeyaan waa scholarships-ka layna siiyo sida kuwa iminka Ethiopia ina siisay 300 oo wixii tirada badan ee ilaa 200 ee hoose la siiyo jaamacadaha muxuu ahaa dawladda ee standardkoodu iska yar liito muxuu ahaa aan helin private schools ama macallimiintoodii tababarka lahayd looga kaxeeyay iskuulada private-ka ay wax ka dhigaan kolka halka inaynu ka soo kicino dadkii aynu tiro waafiya siino dadka hoose ee iskuulada dawladda ku jira madaxdii muxuu macallimiintii wanaagsaneydna private-ka ay badiyaa ugu guurayaan waxa weeyaan inaynu dadkeenii muxuu ahaa scholarships-ka aad uga qayb gelino qolada muxuu ahaa jaamacad ay ku jira iskuulada dawladda ee aan tacliinta waafiga ah helin si ay u soo kororsadaan kolkaa caailadoodii iyo reerkoodii ay sare u soo qaadaan oo dabeetana mas'uul la noqdaan dadkii kale taasi waa dhinaca kale waxa weeyaan danyartan muxuu ahaa sida caanalayda khudradlayda ee suuqa ka shaqaysta ee masruufa reera midna waa inaynu had iyo jeer maskaxda ku haynaayo waxa weeye raggii maanta shaqadii badiyaa ma haye dumar baa reerihii masruufa oo caruurtii haya kolkaa uurkii intii ay lahayd iyo intii ay umusha ahayd iyo intii ilmuhu yaraa iyadu waa mashquul kolkaa reerkii wuxuu shaqeeyaa ayaa loo baahan yahay kolkaa raggii ma shaqeynaya in dumarka danyartaa capitalka ay u baahan yihiin wax weynba ma aha waxa weeyaan waa 300 ilaa 400 oo dollar oo lagu caawiyo oo dabeetana ay wax siistaan loo sameeyana jamciyad isku wareejiyaan wax oo hagbad ay galaan oo bilba midi wax qaadato horta kuwana kuwa dawladda waa la dhisaya waxa weeyaan bal horta private-ku haynoo dambeeye inaynu horta kuwii dawladda ee base-ka lahaa in muxuu ahaa sare loo qaado